qof marka qaabku ku xakameyn karaa shucuurtiisa. Okay, horta sidaas leeyahay markaan ka dhalinyaranahay we have a lot to learn sama marka laba mid horta markaas dhibaatada ku haysato mise culayska markaas ku saaran laba xal waaye mise wax waa ka qaban kartaa or you have a solution mise wax ma ka qaban kartid you don't have a solution right so emotional control ka maxaa markaas inaa og tahay awoodaada your capabilities waxa qaban karo iyo waxaan qaban karin marka wixii aad qaban kartid qabo markaas waxaan fulin karinna ha isku dhibin ha isku culays saarin because awoodaada ma baahan taas way ka weyn tahay right so marka sidoo sadiiq dhahay iimaanka iyo yaqiinta maxay ka iimaanaysaa waxaan qaban karin marka aad wax qaban karin ka weyn tahay taas midda iimaankaaga ramkaas inuu wax ka qabto oo ina alla tala saaratid right taa wax ka qaban kartid ma ilaahay ku fuuday markaas jawaab haystaaba so you can actually do something about it right if you cannot then yaqiintaas yeelo iimaankaas yeelo oo sugo xalkaaga sidoo u imaadaba sama hay balse hadii aad ahayd wax kastaba ana haddaan qabanaya anigana waaye adduunka adiga ma no man is an island right so wax markaas oo adiga bas aadan qaban kartid oo all solution oo heli kartid ma jirto mid kalena maxaa waaye dadka aad tashatid for example laga yaaba wixii adiga markaas oo adiga aadan ogeen mise ka maqan inuu qof kale aqliga ka maqan walka ah ma la such a thing I think so marka laga yaaba marka adiga waxaadan ogeen mise wax culays ka saaran in markaas aad dad mise walaalaha tashatid oo jawaab fudud ku siiyaan macquul gal in ay ka soo mareen hadda ka hor mise in sheeko ku soo maqleen mise experience u leeyihiin aadi lahayn right so also sometimes controlling emotions kaaga ku imaan kara an aid mise assistance ma ka qaadan kartaa markaas dadka ina la tashatid opinion mise wacyigelin mise waano diintana ay taas soo xoog u saartay calashan in markaas dadka waana mise walaalaheen asxaabteena in markaas awaana ka qaadano soma so intaas waa isdhihi lahaa marka anaka youth nahnay mise dhalinyarada taas way ka qayb qaadan karaan mise way anfacaysaa kow midda kale sadiiq weydiina maxaa how can we instill this like dhalinyarada sidee oo loo bari karaa mise u baran karaan right jawaabtaas uma hayo horta kow been ku sheegay soma because everybody has a different journey shantan far isku mid maaha mid kastaba wadada dariiqada furan soma meaning qof kastaba dhacdin noloshiisa ku dhacday mise event mise something abaray the next thing what to do exactly soma hanuun ha noqoto kadeed ha noqoto maybe you're just wise lucky enough waa genius ku dhaltay ma fahamtay so cilmi ku kala furan maybe through books and everything maybe through research maybe through schools right so everybody has a journey but the first thing is adi ahaan horta ma soo jeedaa waay do you actually know there's this part of you or ahaan bis maskaxdaada or like buugi qalinka bas ahaan balse mid kasi culus oo jid dabiici ah because hadda amal if you are going to any corporate work or shaqaash or like you actually have to have this your emotional intelligence will be tested because ina kala ogaatid where you have to differentiate work and shucuurtaada like shaqadii iyo emotions kina kala bixisid way right qofkan let's just say you don't like this person but shaqadiisu ka soo baxay just because you don't like this person doesn't mean you can ka soo hor istaags right so dadka badana through experiences or through learning or through going for counseling many other ways we kala jiri karaan bal hada ma jirto si maxamuudana dhihi karo dadaas loo raaci karaa oo you can have waxa kale muhiim soo xasuustay inta hilmaamin qofka sidoo emotional control oo yeelan karaa ama sidoo shucuurtiisu u xakameyn karaa sax horta bini aadam baa leeyahay qof dhammaystiran ma jiro qof walbana maalinba wax la soo wajaha ama wax la kulmo ama maalinba waxba ku dhaco oo maskaxiyan u dhaawaco ama jirkiisa wax soo gaarsiiyo waxaasna laga inay saameyn badan ay ku yeelato ama wax uu doonayo in badan oo haddana wixii ka fashilmay ama siduu u rabay u noqon weysay ida marka qofka sidoo ku yeelan kara marka marxaladaha noocaas oo kale markay soo wajahaan emotional control oo shucuurtiisu waxa ka meen kara horta marka koowaad qofka inuu hadlaa oo help weydiistaa dadka caawina dadka u weydiistaa oo garabkana u baahanahay taladana u baahanahay arintana ay haysataa maxaa qabtaa halkeen wax ka bilaabaa bal tali isii yana waxaa jirta oranaysa inuu ay kala maqan tahay qaabkii loo dhahay balse qofku siiyo lacag
iyo qofku qof siiya wanaagsan. talo waana wanaagsan talo ku siiya talo wanaagsan Ah. waxaa saameyn badan Qofka kan talada wanaagsan ku siiya. wanaagsan ku siiya waa dhaxal waa taas waxaa waye muddo badan ku caawinaysa Yaa. noloshaada yaa inaa caawinaad dadka weydiisato oo aada hadasho oo caqabadan ay haysato dhibkan ay haysto maxaa iga caawin kartaa maxaalkee wax ka bilaabaa tale isii maa laga yaaba in waxyaala badan iska culays ku saarna inuu kaa dego marka koowaad marka xigto waxyaala waxaa jirta oo adiga aad xallin karto waxyaala uu qofku xallin karo iyo wax ka baxsan awoodda aadamahaba Sax. waxay dadku ku xallin karaan waxay ku imaanayaan inaad dadka caawinaad weydiisato adiga aa hadashaa leanna qof aamusan ma la garanayo wuxuu ku sugan yahay Ha, ha. ama qof guri ku xiran albaabka Ha, soo ha, xirtay ha, ha. wuxuu ku sugan yahay maskixiya lama garanayo Hay, hay. inaad hadasho oo yani qof ama qof aad wacdo ama qof aad si toos ugu tagto arrinkiina uu kala taliyo qof aad ku kalsoon tahay waxaa culays badan ay kaa degayo dhanka kale waxyaala waxaa jirta adiga aa xallin karto oo qofku waa xallin karin leanna laga yaabaa waxaan sababtay ku hirgeli waayeen ama sababtii in aad cilada timid ay tahay culayskan uu ku saaran yahay uu yahay in adiga tahabo sax sax ama qaabka u samaynaysa ha noqdo ama waxyaala badan noloshaada ku lifaaqan ha noqdo ama cibaadadii aad ka tagta ha noqdo Sax. ama adigoo xaaraam kale iyo waxyaala kale ku jira ha noqdo ilaahay kugu imtixaamo waxan ma garatay in adiga meel fadhiisato ee su-aal isweydiiso maxaa kaa qaldan see wax u wadaa wadada ma saxan tahay waxaa laga yaabaa in adina culays kale uu kaa dego aniga anaa qiyaalta iska leh wadadana ku soco wado fiican maahan ama wadadan wax ku doonaya wado fiican maahan in wax ka bedelaa ilaahina u laabtaa waxaana aa xaliyaa taasna waxay ku imaanaysa su-aal weydiin wixii marka ka baxsan awoodda aadamaha ilaahay baa la kashanaysaa oo ilaahay baa baryaysaa oo ilaahay baa culays kaa qaada ayadana oo ilaahay baa kugu imtixaamaya oo imtixaamkabo bini aadamka dhan baa lasoo imtixaamay ambiyadana waa lasoo imtixaamay aad iyo aad ambiyadu waxaa uga samir badnaa nabillahi ayuub oo intaasu sano buu xanuunsanaa oo intaasu sano buu fakri ahaa ma garatay marka adigoo bini aadin ah oo haddana nabi ahayn nebi ahayn marka inaad dul qaadataa waxaa kaloo ugu darsan lahaa filan shubaha waxa la dhahaa jira hadda sanadadan dambe waxaa soo batay waxa la dhahaa suicide dadka Soomaali is dilayaan qofka isdaldalaya isaga isdilaya sababta oo marxalad baa la soo darsaysa wuu filan waaya marka filan shubaha ku noqonaysaa maxay igu dhacday buu dhahayaa macnaa amarkii ilaahay ee sababihii keenay buu inuu imtixaan yar yahay ma dareensanin baa u baahan tahay taana iimaanka qofka oo daciif aad arkaysa marka qofkii dhibaato ayaa la soo darsaysa xal meeshu ka raadin lahaa wuxuu dhahayaa waay maxay igu dhacday maxaan igu dhacday gurigu isku soo xirayaa ma hadlayo qof lama shaagarinayo ilaaha bari iyo ilaah iyo inuuna tala saarin baa laga yaaba uuna ilaahay baryinbo kadib waxaa arsaa alle qofkii wuu isdilay marka waxaa jirtaa horta caqabadahan inta badan diinta islaamku way xal bay u heshay waxaa jirta duco allaahuma laa sahla ilaa maa jacaltahu sahla wa anta tajcalu lxasna idaa shi'ta sahlaha marka qofka ay kula soo daristo dhibaato culayskee miisaan leh horta kow panic waxa la dhaho inaadan khalkhalin marka horeba oo isdejiso ood ogaato sida hadda maxamuud sheegay hadda maxamuud magacaaga way dhaweeya maxamuuda sida hadda maxamuud sheegaayo markii ay kugu soo dirista hawsha kugu dhacdo inaad horta aad dhahdo horta waqti xaayirka wax maad ka qaban kartaa hadday haa tahay hadeerta step ha qaato waqti ha qaato xalli haddaan waxaa ka qaban karin aad isdejiso ood ilaahay u dhaafto ood salaad tukato ood ducaysato ood dhahdo ilaahay adaan kuu dhaafay xalkeediina aad sugto haddii ayna dhicin taas oo way dhahdo waa hawshii aan soo sheegnay ee suicidekii balada dhacaysa marka moral lesson hadda intaan ka ogaanay waxaa waaye in dhibaato kasta oo bini'aadanka ku imaata xalkeedii in ilaahay agta ka heli karto kow haddii laakiin aad dhahdo waxaan ku xalinayaa xirfado kale oo ilaahay agtiisa aadan magangelye aadan dalbanin silsiladda ilahay uu ku sdaadinayaa imtixaanka kusi socon ilaa iyo waa lagu sii quudin ilaa waqtigii aas dhahdo ama aad baraarugto ama aad ku fasahaado marka kow xalkeena wuxuu noogu jiraa marka in aad dhibaato ku imaato kow horta in ilaahay xasuuto inuu imtixaan yahay bal laguba soo dareebo oo in accident ahayn oo qorshahaaga noloshaada ay ku jirtay jadwalkii lagu diyaariyay noloshaada ay ku jirto marka waxaan u maleynaa mawduucaas topicaas waan hal qayb leedahay samaana mise afarta qaybadas falankaynay marka sax maxaa okay intii taas laga bixin oo loo gudbin inta kale final thing wada salaam maxaa sida hadda sheegnay anaka inta fadhin karnaa oo dhigi karnaa saan waa xalka but banya wasooyilana samaga vitu kwa ground tofauti marka si kasta aad dhahdid saan sida professor things are theory others are practical right sax qofka marka badan asaas leeyahay marka horta waxaan ka dhax galo
through experience ku dhacdo wixii because ruux qax soo maray ruuxanan soo marin way kala yihiin ma fahamti and one has better disaster management than the other qof oo qax soo maro khalaasi buuq soo arkay iyo qof ugu horeyso qofkan ugu horeyso ma dhihi kartid don't panic because he has never seen this, right? Meaning by that, in short, like experience will matter a lot fast. And communication, man. Communication. So, communication skills, best man. Is it communication, speech, public speaking, communication, best one. Communication skill. Well, it's a unit. Call caster, so that's also it's very important. Like communication, say hadalka, say whatever. maxaad u bixisay communication ma bixisay xirfadda hadalka marka xirfadda hadalka nooga dhac marka xirfadda hadalka aftahan Soomahan aftahanimo sax motivational speakers inta soo galaya soo galaysaa because xirfadda hadalka ha marka qofku the same discipline the same whatever laakiin maxay kala leedahay bis levels marka qofka aftahanka ah ee haybad Ilaahay u siiyay aftahanka ee gar markuu galo kala kicinaya xaajadiisa goosanaya xaal yiraahdo ibn aadinku qofka markuu hadlo ma la gartaa wuxuu yahay sax qofka markuu aamusan yahay lama garanayo waxa uu yahay markuu qarsan yahay markuu hadlayna aqoontiisa iyo aqligiisa ka hadlaya soo bandhigaya sax hadii marka waxa ku hadlaysa dhiiqatahay ka waran wala ka hadal badan tahay inaa mustaaqo fiican tahay ama inaa mustaaqo ama aad hadal badan tahay ama adan waa hadlaysaa laakiin waxa soo gudbinayso ama dadka wixii ka dhigaysanaa ma jiro qof waa la dhigaystaa laakiin qaabka loo dhigaysto fariin ma gudbinaysid fariin yani dadka marka la dhigaysanaa waa labo qof waxa loo dhigaysanaa si dareen leh because qof wuxuu soo gudbinayo wax la dareemayo oo qofka anfacayo waa sax oo lahay qofkan waa wax fiican u sheegaya sax Sheekh Mustafa kale hadaladiisa qof walba jecel in Soomaaliya dhammaan wada jecel yihiin sax qofnana waa qof uu hadlaya laakiin waa lagu qoslaya oo wala yani wuxuu ka hadlaya lama garanayo ama uu iska hadlaya qofkan wax baasi ka waxba macnaha wax laga faa'iideeyo oo murti ama jirto marka wax laga faa'iideeyo ma jiro sax marka in shactirada iyo qosolka kama wada taas waa mowduuc kale gooniye sax balse qof yani hadda marka wada sheekaysanayeen dhallinyaro meel isku imaado wuxuu ka sheekeynayaa aqligiisa iyo ma dhaqankiisa ka sheekeynay oo fidna iyo xaraan iyo inta ka dhacday wax asaga la quman markaas oo ka sheekeynay kuna wuxuu ka sheekeynay how iyo why wax muhiim u ka hadlaya kuna wuxuu ka hadlayaa hebel asaa dhahay kana asaa dhahay gabadhan la soo hadlay sana sameey alkina ka dhacday qof aqoontiisa ka hadlaya marka qofku marka uu hadal wanaagsan u leeyahay dadku ku kalsoonaanayaan qofkuna hebel qof fiican qof aqoon leh oo qof fiican soo gudbina oo qof la dhageysan karo bal oo qof tala la weydiisan karo xitaa xilliga qaar ma garatay idan waana qayb kamid ah nolosha qofka inuu mar asaga hadlo la dhageysto marna dadka uu dhageysto sax labada marka waxay muhiim u yihiin nolosheena caadiga laana waxa qabnaa laba dhago oo inaan wax badan dhageysano wax badanna wax yarna hadalno ma garatay marka xirfadda hadalku waxay noqon kartaa inuu qofku wax badan dhageysto inuu qofku wax badan hadli karo oo ku hadlayo wax muhiim ah oo dadka anfacayo wuxuu soo gudbinayo wax shakhsiyadiisa mas'alayo oo toosan oo